ti wacan wanaagsan meel kastoo aan nagala socotaan kuna soo dhowaada qormadeennii falaqaynta warka ayaan ugu magac darnay warka maanta. madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro ayaa ka qayb galay sanad guuradii 32aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamada booliska somalilan. munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay taliska guud ee ciidamada booliska somalilan, waxaana ka soo qayb galay saraakiil xigeen, mas-uuliyiinta iyo wasiirada hay-adaha dowladda. madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa khudbad dheer oo taariikhiya goobta ka jeediyey, waxaana uu ku ammaanay ciidamada booliska marxaladihii iyo wacyigii ay soo mareen, isagoo taliska guud ee ciidamada booliska ku bogaadiyey dhismaha iyo sharafta ka muuqata ciidamada booliska somalilan. ciidamada booliska somalilan oo kaalin muhiima ugu jira amniga qaranka ayaa somalilan waxa ay ku bixisay miisaaniyadda ugu badan amniga dalka. khudbado kala duwan iyo warbixinno laga dhageystay saraakiisha ciidamada booliska somalilan, madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaa la soo tusay oo saraakiisha ciidanka boolisku ay soo tuseen goob loogu talagalay oo lagala soconaya amniga iyo dhaqdhaqaaqa guud ee caasimadda Hargeysa, waana arrinta suurtagal ka dhigaysa in amniga waddanka sugo. macnaha warkan ku duugan iyo falanqayntiisa waxay ka mid tahay in ciidamada boolisku ay la jaan qaadayaan ciidamada caalamka marka laga hadlayo xagga tiknoolajiyadda. qormadeenna kale warka maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa mudane aadan axmed cilmi dhoolayare oo horar xilal wasiirnimo uga soo qabtay xukuumadihii kala duwanaaye somalilan ayaa ka hadlay hawada somalilan. aadan axmed cilmi dhoolayare safar dibadeed ka soo laabtay ayaa sheegay inay soo raaceen diyaaradda fly dubai oo isaga iyo rakaabkii la socday aanay cidina weydiinin wax fiisa. waxa uu sheegay somalilan ay xor u tahay hawadeeda iyo nidaamkeeda dowladnimo, arrintanna buu yidhi ay tahay arrin cunfi oo ka imanaysa maamulka Soomaaliya ee inta kooban ka taliya. wasiir axmed cilmi dhoolayare waxa uu sharaxay in ayaanay somalilan xasadka ay wadaan dadka qaar waxba u noqonaynin. waxa uu sheegay in somalilan ay beesha caalamku aqoonsanayso, islamarkaana xidhiidho kala duwan oo dadaalkoodu muuqdo uu ka socdo guud ahaanba caalamka oo dhan. mudane aadan axmed cilmi dhoolayare ayaa xukuumadda haatan talada hayse ee xisbigeeda uu ka tirsan yahay waxa uu ku ammaanay gaar ahaanna madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro, iyagoo muddo kooban xilka hayay in tallaabooyin horle oo la taaban karo ay muujiyeen, isagoo tusaale u soo qaatay dhinaca nabadda iyo horumarka taabagalka ee waddanka ka socda. wasiir hore aadan axmed cilmi dhoolayare waxaa sidoo kale uu soo dhoweeyey maalgashiga la taaban kare iyo dhaqdhaqaaqyada maalgashi ee waddanka ka socda, arrintaasoo uu ku ammaanay xukuumadda haatan talada haysa. qormadeenna warka maanta iyo falaqaynta warka maanta intaas ayuu inoogu dhan yahay, waxaana igala qayb qaatay weriyaha da'da yare Yaxya Nairobi. dhammaanteen waxaan ku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.